muuqaalkan yar waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo xaaladda kooxda Man United. horyaalka saa wada ognahay waa la ciyaaray kulankii 26aad. kooxda Man United waxay fadhisaa kaalinta 15aad. kaliya waxay u jiraan inay relegation aadaan 13 dhibcood. maxaa ku dhacay Man United? waxay rabaa inaan kusoo gudbiyo adigan ra'yigaada qaybta hoose nala wadaag. Man United saa wada ognahay horyaalka Premier League waxay haystaan 20 horyaal. waa kooxda ugu badan horyaalka Premier League haysto. balse maxaa ku dhacay inta muuqaalka gudaha u galin waxaan ka codsanayaa page-kana follow dhaadid laagtaada waa noo muhiim sii share gale oo saaxiibada la wadaag sii gudbi oo muuqaalka meel dheer gaarsii adigana ra'yigaada qaybta hoose nala wadaag soo dhawaada saaxiibayaal kooxda Manchester United oo aan ognahay taariikh weyn ku leh kubadda cagta kooxaha ugu waaweyn horyaalka Premier League ku jirto iyo qaaradda Yurub. Man United oo haysto horyaalkii 20aad ayaa la dhibaatoonaysa xilli ciyaareedkan 2024 iyo 25 waliba waxay ku jiraan booska 15aad. kaliya waxay u jiraan inay u dhaadhacaan championshipka 3 dhibcood. Man United maxaa ku dhacay marka? Man United saa wada ognahay waxaa laga ceeriyey macalinkoodii Erik ten Hag. macalin Erik ten Hag ayaa laga ceeriyey kooxda Man United. saa wada ognahay Manchester United waxay la soo wareegeen Robin Almiron. Man United taas ayay qalad ka sameeyeen sida ra'yigaygu yahay adigana qaybta hoose nala wadaag ra'yigaada muxuu ku leeyahay. aniga sida ila tahay Man United sababta u dhibaatoonaysa xilli ciyaareedkan waxa waaye macalinkii markii la ceeriyey wuxuu ahaa kooxda waxaa joogay Ruud van Nistelrooy oo asigana la dhibaatoonayo kooxda Leicester. Ruud van Nistelrooy markii loo dhiibay oo macalin Erik ten Hag kalabka laga ceeriyey Ruud van Nistelrooy ayay ku wanaagsaneed in loo dhiibo inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. waan ogeyn wuxuu leeyahay kooxda Manchester United 5 kulan 4 kulan uu adkaaday 1 kulanna waxaan u maleynaa darow inuu galay. Ruud van Nistelrooy ayay ku wanaagsaneed inuu shaqada dhameystiro inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. waa ra'yigayga waayo Ruud van Nistelrooy wuxuu Erik ten Hag u magacaabay macalin ku xigeen xagaagii la soo dhaafay. kooxda asigoo la baxay Bariisiska la soo ciyaaray systemka kooxda ay ku dhisantaa ogaa back four loo soo tababaray kadibna horyaalka Premier League markuu bilowday Manchester United macalin Erik ten Hag iyo ciyaartooyda ay fahmi waayaan dhaawacyo badan ha galaan kadibna qaab ciyaareed xun ku bilaabato. sidaa darteed Erik ten Hag markii meesha laga bixiyey marka waxa u wanaagsaneed inay shaqada u dhaafaan Ruud van Nistelrooy kadibna horyaalka markuu dhamaado macalinkan ay keensadaan. balse macalinkan Robin Almiron ayaa yimaaday kooxda asigoo la yaqaan oo systemkiisa ku ciyaarayo back 3. Man United uma tababarna ama seasonkii oo dhan kumaysan ciyaarin back 3 wax la yiraahdo ama Man United oo dhan ba back 3 wiligood kumaysan ciyaarin. systemkan oo macalinka cusub oo wato Robin Almiron uu ku adkaystay wuxuu yiri systemkayga inaa ka hirgeliyo ayaa meeshan dhowr mar ayaa loo soo jeediyey macalinka cusub ee Manchester United Robin Almiron inuu systemkan ka baxo oo back 4 normalka Man United ay ciyaari jirtay oo ciyaaro. balse wuxuu yiri aniga system ayaa leeyahay systemkayga ayaa rabaa inaan ku adkaysto oo aan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan aan gaaro kadibna waan is arki doonaa xilli ciyaareedka dambe aan ciyaari doono back 4 iyo back 3 ba. saa wada ognahay Manchester United waxay la dhibaatoonaysaa back 3 ay ciyaarayaan. sabab u ah Manchester United xilli ciyaareedkan bilowgiisii wax training ah ama kulamadii fasaxa wax training kuma soo qaadan inay ciyaaraan back 3. waxaana dhibaatada labaad ay tahay Manchester United dhaawacyo badan ayaa soo galay. iyo dhibaatada saddexaad ay tahay kooxda Manchester United markuu macalinka saad u soo galay isku dhacweyn ayaa qolka labis ka bilowday. waxaan u weynaa Marco Rashford oo daaqada laga saaray ugu dambeeyay. Rashford waa baxay Manchester United halkay ku sugan tahay. kooxda Manchester United horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan 2024 iyo 25 kaalintee ayay ku dhamaysan doonaan qaybta hoose nala wadaag. xalne maxaa u ah Man United macalinka miyaa saxsan mase systemka Man United aysan aqoonin dhibaatada halkay ka jirtaa. Man United ba mase macalinkan madaxadeegiisa oo systemka back 3 ayay dhibaatada ka jirtaa. oo kuma sita daawashada muuqaalka inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo.